soo dhawaada saaxiibayaal marka aad gabar shukaansanayso ma noqonayo hadal walba aad ku dhahdo mid gabadha soo jiidanaya mararka qaarna waxaa dhici karto in gabadhii ay ka xiiso dhacdo oo ay ku nacdo mowduucyada aan tayada lahayn awgood sidoo kale waxaa jira mowduucyo ay gabdhuhu jecel yihiin in wiilku kala hadlo waxaan kula wadaagi doonaa 3 qodob ama mowduuc oo wada sheekayst kasta looga baahan yahay oo aad gabar la yeelanayso dhammaan qodobadana aan ku sheegi doono waa qodobo la hubo oo waqti ayaan ku bixiyay baaritaanadooda aniga oo ila kala duwan ka soo xigtay haddaba qodob koowaad ama mowduuca koowaad oo gabdhuhu jecel yihiin in lagala hadlo oo wiilka ay shukaansanayso gabadhu uu soo hadal qaado ay jecel yihiin waxa waaye kala hadal mustaqbalka wada sheekaysiga dhan inta aad ka dhigi lahayd maanta maxaa haysaa furfur wada sheekaysiga gabdhuhu aad ay u xiiseeyaan wiilka kala hadla mustaqbalka weydii gabadha intee jeclaan lahayd dunida maalin uun inaad u dalxiis tagto kadibna maxaa ku jeclaatay waana ogahay adiga oo lagula socda ayaa kamac yacni su'aal furan tani waxay kaa saacidaysaa inaad isku soo dhawaataan wada sheekaysigiina isku xirmo kuuna aragto nin mas'uuliyad qaadi karo oo mustaqbalka ku xisaabtamo gabdhuhu aad ay uga fikiraan mustaqbalka waxayna in badan ka fiiriyaan wiilka ma yahay nin mustaqbal leh mas'uuliyad qaadi karo haddaba iska ilaali in gabadha aad la sheekaysato horteeda aad ku muujiso cabasho iyo in aad tahay nin aan dhibaatooyinkiisa xalisa karin noqo nin gentleman ah mar walba garanaya ciyaarta meesha ay ka leedahay mowduuca labaad oo gabadha xilliga shukaansiga in aad kala hadasho loo baahan yahay waxa waaye ama aad ku qasban tahayba in aad kala hadasho waxa waaye xiriir qaladka badan ay wiilasha sameeyaan ayaa ah in gabadha ay la hadlaan waqti badan ma xumo balse ka waran adiga oo gabadha la hadlayay 40 daqiiqo hal marna aan kala hadlin wax ku saabsan xiriir waxa laga yaabaa in aad shukaansato gabadha aad isku galaas tihiin ama isku xaafad ka waran caawa oo dhan haddii aad uga sheekayso xiisada maanta ama hebel wuu xanaaqsanaa xaafadda ciidaha isdagaalay gabadhaas nin kale ay ka raadsanaysaa saaxiib adigana booska walaaltinimada ayaa lagu dhigi doonaa gabadhan marka aad uga sheekaynayso waxa galaaska iyo suuqa ka dhacay masaaxiibteed ayaa tahay saaxiibteed ayaa wax uga sheekaysa si ka mactaada ma aragtay in gabdhuhu necib yihiin ka dabci ahaan macalinka wiilka iska suufiga ah wiilka xishoodka badan waxaa laga yaabaa inay ka istaal qurxan yihiin lacag badan yihiin haddana waxay ku leeyihiin dumarka waan isku dhibanahay ma fahmi kartaa dhibaatada haysata raggaas waxa aysan fahansaneen female nature ama dabciga dumarku sidoodaba waxa ay jecel yihiin ninka uu xishoodka ku yar yahay aana ka cabsan gabadhan oo la dhaqma sida qof caadi ah oo kale ixtiraam badan oo aad gabar siido kuma soo jiido doontid sidoo kale xanaaq far badan ma fiicno sida qof caadi ah oo kale gabadha oo la dhaqan talada ugu dambayso aan ku siinayaa saaxiib adiga maxaa laga rabaa ka wiil ahaan waxaa laga rabaa nolol kala hadal gabadha jecel in ay hooyo noqoto xiriirka wiil iyo gabar ka dhaxeeya in la isguursado mowduuca saddexaad ee wada sheekaysiga xiisaha u yeelaya waxa waaye haweendiin gabadha su'aal jawaabteedu tahay haa ama maya ama adiguba ha ku jawaabin waxaad u baahan tahay in wada sheekaysigu sii socdo wadada kaliya ku sii socon karaana waa in meesha la keeno mowduuc laga wada hadlo marka aad gabar su'aal weydiinayso ama xitaa qof kale su'aashaas ha noqoto su'aal furan tusaale maxaad ka aaminsan tahay jaceylka ka horeeya guurka in labada qof is shukaansadaan wada sheekaysi tayo leh ayaa meeshaas ka soo baxaya sidoo kale adna ka wiil ahaan markii su'aal lagu weydiiyo ha ku jawaabin haa ama maya oo wada sheekaysiga qurxi waxay dhahaan answer with history si sheeko ah u jawaab tusaale haddii lagu dhaho maxaad jeclayd markaad yareed inaad noqoto ha ku jawaabin dhakhtar waad ku dhashay sheekada sidaan ka waran haddii aad dhahdo markaan yaraa waxaan jeclaa in aan noqdo madaxweyne balse markii la soo weynaaday wax walba way isbedeleen duruufaha nolosha ku soo wajahaya awgood balse weli rajadeeda kama tanaasulin laakiin hadda waxaan ahay macallin jaamacadeed